السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قيمة قدرنتي إيجا مدن أنكو كل نيبرت أنكو لي هاي يوتيوب شيء من الشرف ولا لا قيمة قدرنتي إيجا مدن هدا هوري إلى جوكتين وكما ستين اللي جوزت نروح البدن هدا يقول سبتين وحد لا ويلكم قاع مفرن قلب فرني وجه فرن بكسود وهذا ولا لا قيمة قدرنتي إيجا مدن شيء مر والبحاول برتين دي سوق بسوق صوين قروح بدن يكسر رسيد الدنيا الدافئة هذا ما أنت قسمة وعربي إن إذن لو ذاقو قسم معها وحيرب تاين إذن لو ذاقتو وحيابو واقعية ويدنيا دشيا ذكو صامرتي كو أركتي usoo taagneyd beerta inay idin wadaagto insha Allah dabcan ay dhici kartana waxyaabo badan noocaas oo kale tahay inay dunida dusheeda saaran tahay aaminsanayna maadaama indhahay ku arkay in ay jiraan wax noocaas oo kale tahay horta qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana u qoray oo hadays u qoray ayaa hadaysma qofkii waana u qorayna waanada uu qaatay waanana baa la yiri abuuris la yaabtay qofka bini'aadamka ah si kasta u waalinaysid oo wuxuu ugu sheegaysid wuxuu u bartay iyo dabcigiisa iyo dabeecadiisa ma laga yaabo inuu iska bedelo maxaa yeelay waxa bartay waa baska ayaa la yiri waxa la yiraahday qof walbana meesha dhadhamo uga bartay walba waxa saama daayimeed waxa la dhihi jiray bisadu meesha dhadhamo uga baratay kama dhamaato miyada saas maamahaba kulay noocaas ahayd laba gabdhood saaxiiba ayaa jiray labada gabdhood saaxiibada ahaa mid kamidii waxay ahayd gabdhaha magaalada ku jira mid kamidna waxay ahayd gabar aad iyo aad u asturan oo wanaagsan ayay ahayd waxay waanan jirtay maalin walba isku day jirtay inay waaniso gabadhaas walaasheeda gabdhahaas suuqa lagu tilmaamay gabadhii adigu ala kulli xaal qofkii ugu horeeyay oo qof wanaagsan oo ila saaxiibta ama la degto ayay ahayd gabadha tan saaxiibteeda ma sha Allah day wanaagsan wax waaninaysa tan kale marka waxay aad iyo aad ula qabsan weysay gabadha tan wanaagsan la deganaanshaha ay la degan tahay maalin walba waaninayso maalin walba wuxuu sheegayso maalin walbana xumaanta ka reebayso ayay aad iyo aad u dhibsatay gabadha tani waxay awalkii hore saaxiib la aan jirto la degi jirtay gabdho nooceedo kaleeta gabdho iyadoo kaleeta gabdho iyadoo waxay walaaqanayso la walaaqda gabdho inay waaniya iska dhaafay inay u horseedaan musiibo iyo balaayo iyo faaxisho iyo inay u horseedaan kaliya ay saaxiibo ku ahaayeen gabadhan wanaagsan ee isku dhanka u jeeda maxaa la yiraahdaa waaninaysa xumaanta ka reebaysa waxa iyadu walaaqanaysa aan la walaaqanaynin ayay muddo xoogaa ay la deganayd kadibna dabcan waxa bartay waa baska ayaa hore loo yiri way la qabsan weysay gabadhii arrintii wayna la joogi weysay waanadii ay waaninaysay wuxuu sheegaysay ayay waxayba keentay inay dhibsato oo ay aad iyo aad u dhibsato maxaa yeelay waxa bartay waa baska waxaan hadaad rabin inaad ka hartid oo niyadaada aadan gelinin oo aadan go'aansanina lagama yaabo inaad ka hartid qofkan ku waaninayo qofkan wax ku sheegayo qofkan ku dhahay sharaftaada wax u dhiman iyo qofkan ku dhahay sharaftaada ilaasho run ahaantii waa qof wanaagsan weey waxa la yiri qof wax ku siiya in badan ayaad arkaysaa laakiin qof wax ku sheega in yar ayaad aragtaa gabadhan maadaama ay rabay wax sheegan iyo waanada tan inay ku waana qaadato qofkii qol Ilaahay qofkii uu qoray waano ayaa qaatay ma isan qaadanin oo waanadii sida ay ka tagtay gabadhiina way la noolaan kari weysay ilaa markii dambeeto ay gaartay in ay ka guurto oo xaafad kale u guurto ay raacdo asxaab nooceedo kale asxaabtii ay magaalada ay ku wada kulmi jireen oo hore loo noolaan jirtay oo faaxishooyinka iyo musiibada u horseedi jiray asxaabtii ay go'aansatay inay la degto asxaabtii ayayna ku faraq xiratay ilaa markii dambeeto subxaana malakul quduus musiibooyin fara badan gabadhii ay ku dhaceen sida in ilmo dhashay bila aaba in maxaa la yiraahdaa ayadii ceebaheedii faaxishadeedii magaalada la jiijiidayay in ay yani musiibooyin fara badan ay la kulantay ilaa al'aan kana ay wixii walaaqanayso ay ku jirto marka Allahumma najina kulli shar iyo kulli bala ilaahay baan ka mangalayna waxaas iyo wax lamid qisadan ayaan waaqicigan taagnaa ee xaqiiqada ayaan rabay maanta inaan la wadaago waana wax la yaabo weeye waana wax yani midalan dunidatan hadda aan taaganahay ka jira weeye gabdhaha walaalahayga quruxda badan waxaan aad iyo aad uga talinayaa uga waaninayaa in ay iska daayaan waxa kan wixii ku jira gabdho noocan oo kaleeto oo magaalada ku jira hadday asxaab la yihiinna in ay waaniyaan intay waanin karaan ama waanada idin ka qaataan ama waanada idin ku nacaano waaniya inta waanin kartiin wuxuu sheegay inta wuxuu sheegi kartiin intii waxa walaaqanaysa waxa ku jirtana Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo hadeeyay yaan leeyahay inagana Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay naga najeeyo hana inaga badbaadiyo Ilaahay baan ka magangalaynaa waxaas iyo wax lamida Ilaahay ku jirkooda astura cawradooda astura ee aan faaxisho doonan Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay naga dhigo dhamaanteen maxaa yeelay dunidatan waa shay waxa weeye laga tagayo weeye waa dhamaanaysa laakiin nolosha dhabta
weeyaan mida loo wada socdo aakhiro ilaahay subxaana watacaala khayrka hayna waafajiyo dhammaanteen waana intaa waanin kartid walaalka videogan haddaad daawatid share iyo like iyo subscribe iyo insha allah waan ku mahadsantihiin jogsan qurux badan waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa walaashin Shayma Sharaf